waaqiiq iyo uuro ku shareertay cirka kadib markii ay wadada dheer ee wadnaha ay ku gubeen taageero banaanbaxayaal ka careysan dil uu ugu geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska isgooska Holwadaag wiil iyo abtigii wada saarnaa bajaaj. banaanbaxayaasha ayaa jabigooda waxa uu ahaa sida tan. askarigii goobta dilka ka geystay ayaa isaga baxsaday waxaana intaa kadib goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo rasaas khasaare kala geysatay ku kala ceeriyay dadkii banaanbaxayay waxaana rasaastaas ku geeriyooday 2 qof oo shacab ah. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo isugu jira shacab iyo darawalada kaxeeya mootooyinka bajaajka ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen. anigoo hooyo Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma dhagoola anigoo guriga jooga wax walba maqla bajaaj la dil shacab la dil qaraxa dhibaatada jid baaxir qabri miyo salayn ma dhimanayo miya aakhir malahan miya dhagool miya saqiir miya sariir saar maxaa ka qaldan waxaan u sheegayaa madaxda Soomaaliya inuu wax ka qabto tilaabo gobolka Banaadir injineer Yariso asaa ballan qaada bajaaj dambe in la dil dhibaatada dambe in loo geysan tilaabo maalin walba waxaan u sheegaynaa maanta laga bilaabo meedka meeshaas yaal qiirada nagu qaaday taayirada aan gubnay ganacsiga hormuudna ay bajaajada dad dhaawacday waxaan ka codsanayaa dawladda tan ka qaad in xarunta madaxtooyada u imaanayna si degdeg ah ka jawaabin shacabka magaalada Muqdisho waxaan u dhibanahay oo u gumacsanahay dhibaatooyin ay nagu hayaan ciidamada dawladda waxa way ciidamada dawladda bilaa nidaam waaye qofka bini'aadankana ma qiimeeyaan boo sidooda baxbada bis ay kala hadlaan marka dawladda meeshaan joogto waxaan ka codsanaynaa haddaysan waxba ka qaban karin waa inayna dhaaftaa annagaas ka qabanayno waxaan u sheegayaa dawladda fashilka ah oo shacabka u soo jeesatay dhiigooda inay cunaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed inay cunaan waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan waddanka ma hayn karaan iscasila wajigi shalaayada ku dooranay waa idinka weyne Yariso waxaan u sheegaynaa wadooyinka uu xiray haddii degdeg tilaabo ah degdeg oo jasta uga jawaab waay ina xafiiskiisa uu tahay sida u jeedaan dadka weynihii ayaa hadda dibadbax sameynaya ciidamadii goobtan wax ku dilana way isaga tageen oo way carareen shacabkii ayaa hadda haatan banaanbax halkan ku sameynaya dhacdadan ma ahan markii ugu horeysay dhowr jeer ayaa halkan waxa lagu dilay bajaajlayaal iyo sidoo kale dad shacab ah waa ina soo noqotay Maxamed Yaxya Jinow mustaqbal